madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maaro ula falkii ay ku kacday Israa'iil iyo sidoo kale isagoo goordhow khudbad ka horjeediyay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya labadiisa aqal iyo sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh aadnihi hay'adaha waxa kamid ah senator Cusmaan Dube oo ka soo jeeda Somaliland oo iska casilay xilkii senatornimo isagoo goordhow u duulayo magaalada Hargeysa xog la yaab leh ayaan kaga hayaa sidoo kale iscasilaadiisa oo xilligan ku soo aaday dhinaca kalena filla Hargeysa xalay waxa ka dhacay shir albaabada ay u xiran yihiin kuwaasi oo lahaa madaxdii hore ee dalka hore soo martay kuwaasi oo ay kamid yihiin Sheekh Shariif Farmaajo Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaare محمد حسين روبلي يسوع كلام مدحوينها وقت يسوسين مانيو حسن شيخ محمود وحن لو وده هذي حالة وجود دلك يسوع كله حالة السياسة هات الصومال أو عليها كسي بحياة قد بدأ يسوع كله قد بدأ مركز إنه وصل كرر أيام كل وده جدنا صاحب يال بل سهدية تمر كورس أنصب قد فضل مقال كان الأكثر يوتيوب كنا سبسكرايب صار أو كم من نقطة صاحب هذا كان مركز تانو وبهنا حوجها دق يكون صابسن عرمها الصومال يعالم كيتب وهجك داودال إنه جود قلنا madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa guud ahaanba ku fashilmay arrinkii ama go'aankii la yaabka lahaa ee ka soo yeeray Israa'iil madaxweynaha oo goordhow qurbad ka horjeediyay ayaa sheegay in mowqifkiisa kaga aadan arinta Israa'iil ee ku dhawaaqday Somaliland in ay tahay dalka madax banaan Soomaaliya isagoo si la yaab leh u weeraray madaxweynaha maamul goboleedka Somaliland Cabdiraxmaan Ciro waxa uu sheegay in Ciro uu haatan dhiiqo lagu halgelinayo shacabka Soomaaliyeed waxa uu sheegay in aanan marnaba la aqbali karin in gobolada waqooyi ay ka go'aan gobolada koonfureed waxa uu sheegay in Israa'iil ay ku kacday waxa ay tahay xadgudub weyn oo wax u geysanaysa ayuu leeyahay madaxweynaha qarnimada dhuleed ee sidoo kale madax banaanida dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dhinaca kalena Cusmaan Dube senator Cusmaan Dube oo ka tirsanaa baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kaasi oo ka soo jeeday Somaliland ayaa goordhow wuxuu iska casilay xilkii uu hayay sabab la yaab leh ayuuna isaga casilay waxaana lagu soo waramayaa in guud ahaanba uu u safri doono magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland senator Cusmaan Dube oo ah senator ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kaasi oo deegaan doorashadiisu ay tahay gobolada waqooyi kuna matala Somaliland markii aan joogno gudaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa goordhow iska casilay xilkii uu hayay waxaana lagu soo waramayaa in xilkani uu salka ku hayay kadib markii dawladda federaalka Soomaaliya ay guud ahaan ka soo horjeestay aqoonsigii Israa'iil ay aqoonsatay in Somaliland ay tahay dalka madax banaan waxa jiro xogo kale iyo sidoo kale macluumaad arintan ku saabsan ayaa soo ifbaxaya waxana lagu soo waramayaa in iscasilaada rasmiga ay kaga timid kadib markii senator Cusmaan Dube uu si cad ugu soo horjeestay go'aankii ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya ee ahaa in marnaba Somaliland aysan ahayn dalka madax banaan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya senatorku ayaa lagu soo waramayaa in oo ahaa wasiirkii hadda ka hor warfaafinta madaxweynihii Xasan Sheekh ka horeeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu haatan guud ahaanba iska casilay xilkii uu hayay ama uu ka hayay senatarada aqalka sare ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan lagu soo waramayaa inuu haatan ku sugan yahay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waxaana la filayaa in saacadaha soo aadan uu ka dago magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland waxaana halkaasi haatan ka socota qabanqaabadii ugu dambeysay ee lagu soo dhaweynayo senator Cusmaan Dube oo mowqif adag ka qaatay kadib go'aankii dawladda federaalka Soomaaliya ay ku dhawaaqday kaasi oo ahaa in Somaliland ay wali ay tahay maamul ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya dhinaca kalena xalay villa Soomaaliya waxa ka dhacay shir ay albaabada isugu xiran yihiin kaasi oo u dhaxeeyay madaxweynaha waqtigiisu gawaabsiga yahay ee u hartay muddo ka yar 4 bilood waxaana shirkaasi u dhaxeeyay madaxdii hore ee dalka ee ugu horeeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale Sheekh Shariif Xasan Cali Khayre Maxamed Xuseen Roble guud ahaanba ku matala madasha samata bixinta mucaaradka iyo sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana kulankaasi loogu arinsanayay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sidoo kale walaaca xoogan ee soo wajahay dawladda federaalka Soomaaliya kadib markii Israa'iil ay ku xadgudubtay madax banaanida dhuleed ee sidoo kale jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shir degdeg ah isugu yeeray madaxdii mucaaradka waxa uuna shirkaasi kaga hadlayay arimaha markaasi la xiriira aqoonsiga ee Somaliland ee dawladda Israa'iil ama Israa'iil ay u aqoonsatay Somaliland markii la isku fahmay in mowqif adag laga wada qaato xaaladda guud ee dalka iyo sidoo kale mucaaradnimo inta meel la iska dhigo hal mar loo soo wada jeesto midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sanad
mucaaradka iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa isku fahmi waayeen xaaladda siyaasadeed dalka maadaama uu dalku haatan wajahayo xaalad hubanti la'aan oo siyaasadeed oo kaga imaanaysa dhankaas iyo beesha caalamka madaxweynuhu ayay mucaaradku waxay ka codsadeen in uu talada dhulka dhigo maadaama xaaladda siyaasadeed dalka ay haatan faraha ka sii baxayso mucaaradkuna waxay sheegeen in madaxweynuhu ay ka dalbadeen in mar kale talada dalka uu madaxweynaha dhulka dhigo si loo wada tashto ayatiinka iyo sidoo kale xaaladda siyaasadeed ee dalka madaxweynuhu ayaana ka dhaga adeegay go'aankii ama codsigii ay u soo jeediyeen mucaaradka maadaama uu madaxweynuhu sheegay in aanan xilligan laga hadli karin arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale maadaama lagu soo duulay qarannimada iyo sidoo kale madax banaanida dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gudoomiyihii aqalka sare Cabdi Xaashi ayaa waxa uu si cad u diiday inuu ka qayb galo kulankii maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu jeedinayay baarlamaanka labadiisa gole madaxweynaha ayaana khudbad halkaasi ka jeediyay waxa uuna labada gole ee baarlamaanka uu ka codsaday in meel adag laga istaago madax banaanida dhuleed ee sidoo kale jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya madaxweynuhu ayaana lagu soo waramayaa in haatan uu guud ahaanba mowqif adag ka qaatay go'aankii ka soo yeeray Israa'iil oo uu ku sheegay inay ku xadgudubtay madax banaanida dhuleed sidoo kale jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweynuhu waxa uu sheegay in aanan la aqbali karin in la kala qaybiyo dhulka Soomaaliya waxa uu sheegay in Soomaali ay hal tahay ayna midaysan tahay waxa uu baaq iyo sidoo kale fariin bogaadinaha u diray shacabka reer Somaliland waxa uu uga digay in dhulkooda ay cadow u gacan galiyaan sidoo kalena ilma cadow ay leeyihiin lagu dhalo qaybo kamid ah gobolada waqooyi ee Soomaaliya xaaladda siyaasadeed guud ahaanba haatan waa ay qisan tahay waxaana marba marka ka sii dambaysa cirka isku sii jareeraya xaaladda hubanti la'aan ee dalka uu galayo iyo sidoo kale mowqifka adag ee haatan dowladda federaalka Soomaaliya ay ka taagan tahay go'aankii ka soo yeeray Israa'iil wixii ka soo kordho xaaladda guud ee dalka saaxiibayaal waxaad ku daawan doontaan wararkeena kale iyo sidoo kale muuqaaladeena xiga